خسارة تلقوم مايسين وخلقوا خسارة تلقوم مايسين عدايا هدكينيو وردكين هاتير صدو على كادشينيو تلقويدي سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحبين نمو أحد وعيسنين صوغل يسو كنا بين 6 أكتوبر 2022 مركز كسو دوادا مقالة تحنها يعني هل كان كسو باهين جرني kuna saabsanaa maadada Englishka gaar ahaan gradeka 8aad. muuqaalada hore waxaa kaga soo jawaabnay in spite of exercise-kiisa koowaad, kiisa labaad iyo kiisa saddexaad. kan marka waxaan caawa kaga jawaabaynaa ama isla arkaynaa exercise 2 oo ku saabsan forming verbs ka samaynta ficilada into subject horgale. يعني verb lagu siinaa ama ficil lagu siinaa waxa u bedelaysaa subject ama horgale. wuxuuna ku yaalaa marka exercise kan labaad page ka 24 ayuu ku yaalaa. exercise koowaad marka muxuu leeyahay fill buuxi dagaamis meelaha bannaan faaruq ah below ee hoos ku qoran using adigoo isticmaalaysid appropriate form habka ugu munaasabsan ama ugu haboon of the verbs ee ficilada into brackets ee bracketyada ku jiro ama qoysaska ku jiro. marka meel bannaan oo gaab ah ayaa laga rabaa inaad filin ku samayso oo aad buuxiso. isla markaasna waxaa isticmaali doontaa oo ku buuxin doontaa verbska ku jiro bracketka adigoo ka dhigaysid verbskaas ama ficiladaas horgalayaal ama subject. su-aasha koowaad marka maxay leedahay at elders. su-aashkood waxay dhehaysaa at elders odayaasha is very bad manners. waa habdhaqamo aad u xun. yani maxaa laga wadaa at elders odayaasha is very bad manners waa habdhaqamo aad u xun. ereyga isticmaalaysid ama verbka maxaa waaye waa shout. shout waxaa laga wadaa qaylin, waa verb, waa ficil. marka haddii subject laga dhigo verbkaas ama ficilka aan haysano ee shout waxaa lagu daraa ing. maxaa soo baxaya marka shouting ku qaylinta oo lagu qayliyo at elders odayaasha is very bad manners waa habdhaqamo aad u xun. very bad oo aad u xun. marka shouting ku qaylinta at elders odayaasha is very bad manners waa habdhaqamo aad u xun. marka hore muxuu ahaa verb oo marka hore ahaa shout. hadda muxuu noqday subject markii lagu daray ing. that is number 1. number 2 is a very bad habit. is a very bad habit waa dhaqan aad u xun. habit waxaa laga wadaa dhaqan ama caado. is a very bad habit waa caado aad u xun. ereyga lagu siiyey ama verbka waa lie. lie waxaa laga wadaa waa been sheegid. waa verb, waa ficil. subject haddii laga dhigo muxuu noqonaa lying, been sheegidda. is a very bad habit waa caado aad u xun. lying, been sheegidda ama beenta. is a very bad habit. is a very bad habit waa habit ama caado aad u xun. numberka saddexaad ee ku xigo asagana wuxuu leeyahay is not allowed lagama ogolo in the mosque masaajidka dhexdiisa. is not allowed lagama ogolo in the mosque masaajidka dhexdiisa. waxaas maxaa waaye verbka haystid maxaa marka waa eat, wax cunid, cunitaan yani eat. hadda waa verb, waa ficil. subject ka dhig maxay noqonaysaa eating, wax cunida. is not allowed lagama ogolo in the mosque masaajidka. mosque yani waa masaajid. eating cunida
is not allowed lagama ogolo in the mosque masaajidka marka eating hadda waa subject kadib markii lagu daray ing that is number 3 number 4 maxaa waay is the fastest model of travel today is the fastest model of travel today is the fastest model waa modelka ugu degdegsiimaha badan of travel today ee safarka maanta ama loo adeegsado is the fastest model waa modelka ugu faastisan ama ugu degdegsiimaha badan model waxaa laga wadaa nooc maxay noqonaysaa marka modelka ugu degdegsiimaha badan yacni nooca ugu degdegsiimaha badan marka model waa nooc is the fastest model waa nooca ugu degdegsiimaha badan of travel today ee safarka maanta loo adeegsado marka erigaas meesha kugu jiro ama verbka waa fly waa duulimaad waa verb haddii laga dhigo subject maxay noqonaysaa flying duulimaadka is the fastest model waa nooca ama modelka ugu degdegsiimaha badan of travel today ee maanta lagu safro يعني diyaarada laga wadaa macna flying waa duulimaad yaa lagu talagalay diyaaradaha ama dayuuradaha way ka faasisan yihiin ama way ka degdegsiima badan yihiin modeliska kale noocyada kale sida baabuurta mootooyinka tareenada waxaasoo dhan waxaa ka faasisan oo ka degdegsiima badan flying marka waxay ku geyn kartaa waqti gaaban ayay ku geyn kartaa halka modeliska kale ee waqti badan ka qaadanayaan that is number 4 number 5 makes me aniga waxay iga dhigtaa very tired mid aad u daalan makes me aniga waxay iga dhigtaa very tired mid aad u daalan yani tired waxaa lahaa daalan waxaas marka maxaa waaye verbka aa haystid waa drive waxaa lahaa kaxayn ama wadid drive maxaa waaye kaxayn ama wadid marka waa verb hadeertaan subject ka dhig maxay noqonaysaa driving kaxaynta ama wadida makes me waxay iga dhigtaa very tired mid aad u daalan very tired mid aad u daalan that's number 5 number 6 is her favorite happy is her favorite happy waxaa lahaa hiwaayo ama hiwaayad favorite maxaa lahaa waxa ugu jecel badan tahay marka waxyaabaha kala fiiriyo yani waxa ugu jecesha mesela loo kala dharka haday noqoto cuntada haday noqoto maadooyinka aad baranaysid maado waxaa jirta aad u jeceshahay marka favorite waxaa lahaa waxa yani waxyaabaha kale ka jeceshahay marka is her favorite happy waa hiwaayadeeda ay ugu jeceshahay is her favorite happy waa hiwaayadeeda ay ugu jeceshahay marka verbka aa haystid waa read waa aqrin maxay noqonaysaa marka haddii subject laga dhigo waxay noqonaysaa reading wax aqrinta is her favorite happy waa hiwaayadeeda ay ugu jeceshahay oo her favorite-keeda ah marka reading waa subjectii hadda noqotay number 7 can be wuxuu noqon karaa very refreshing mid aad u ah refreshing yani refreshing waxaa laga wadaa tusaale ahaan oo kale haddii daal badan oo kaa muuqdo seexataa hurdo aa soo kacid haddana waxaad ku samaysay refreshing waa is soo cusbaynaysiisay yani waa soo nastaa laga wadaa refresh ay soo samaysay marka la fiiriyo inta aan refreshing isoo samaynin iyo kadibba isku xaalad ma tihid isku midna ma tihid marka can be waxay noqon kartaa very refreshing mid aad refreshing u ah oo dib soo cusbaynaysiin aad ah marka waxaas maxaa waaye verbka aa haystid waa resti waa nasasho ama bajiino kaa doonto isticmaal resti waa nasasho maxay noqonaysaa marka refreshing waxay noqonaysaa resting aan dhaho resting nasashada can be waxay noqon kartaa very refreshing mid aad isu soo cusboonaysiin ah refresh waxaa lahaa inaa isu soo firfircooni geliso macnaha haddii boring aa ahayd ama uu kaa muuqday caajis uu kaa muuqday passive one aa ahayd inaa refresh isu soo samayso isu soo yacni maxaa dhahay refreshin aa kusoo samayso oo aa isu soo cusboonaysiiso ama aa isu soo firfircooniyeyso refresh waxaa lahaa firfircooni inaad dib isu soo geliso marka resting nasashada can be waxay noqon kartaa very refreshing mid aad dib isu soo fircoonin ah
numberka sideedaad ee ku xigo wuxuu leeyahay shows that someone is interesting. shows waxay muujinaysaa that someone in ruux ama qof is interesting uu xiisaynayo ama uu danaynayo. marka waxaas laga hadlayo waa paint waxaa laga wadaa rinjiyeyn, wax in la rinjiyeeyo oo color la mariyo waxaa loo yaqaanaa paint, waa rinjiyeyn. hadda marka waa verb ama fal ama ficil, haddii subject laga dhigo maxay noqonaysaa painting, rinjiyeynta. shows waxay muujinaysaa ama tusinaysaa that someone in ruux ama qof is interesting uu danaynayo ama uu xiisaynayo. marka painting haddii ing ay wadato waxa ay noqonaysaa subject, haddii laakiin ing laga jaro oo ay noqoto paint waa verb ama ficil. that is number 8. number 9 is common with many babies. is common with many babies. waxaas maxaa waaye waa cry. is common waa wax ay wadaagaan with many babies badan. babies maxaa waaye waa caruur waay, weliba caruurta aadka u da'da yar, 1 sano 2 sano something like that. caruurtaas oo kaleeto oo da'da aadka u yar tahay ama xitaa socodka markaas uu soo bilaawday NTC, kuwaas waxaa la dhahaa baby ama babies. marka is common waa waxay common ku yihiin ama ay wadaagaan many babies caruur badan. waxaas maxaa waaye marka waa cry, waa oohin. hadda waa verb ama ficil, haddii aad ka dhigtid subject maxay noqonaysaa crying, oohinta. is common waa waxay wadaagaan with many babies caruur badanaa wadaagta, marka common ku ah crying, oohinta. is common waa waxay wadaagaan with many babies caruur badan. that is number 9. number 10 is something I enjoy. is something I enjoy. is something waa wax ama shay I enjoy aan ku naaloodo ama aan ku raaxaysto. waxaas maxaa waaye waa paint. mar labaad soo noqday paint waa rinjiyeyn ama color marin, wax in color la mariyo la rinjiyeeyo waxaa loo yaqaanaa paint, waana verb ama ficil ama fal NTC. marka haddii laga dhigo subject maxay noqonaysaa painting. rinjiyeynta is something waa shay ama wax I enjoy aan ku raaxaysto ama aan ku naaloodo. marka maxay noqotay subjectay noqotay marka ing lagu daro. halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. waa rajaynaa inaad fahanteen ama wax badan aad ka fahantay. mar intaan marka ka bixin waxaan rabaa marka hore in aan soo dhaweyn u sameeyo, aan dhaho soo dhawaada ardayda cusub ee nagu soo biirtay. waxaan dhahaynaa ku soo dhawaada kanaalka, waa kanaal waxbarashada maxaa lahaye ka hadlo, soo bandhigo baahida markaas ardayga uu qabi karo in yani aan ka daboolno aan isku dayaynaa, maadaama ardaynimada lasoo wada maray. marka ardayda cusub waxaan dhahaynaa waxaad joogtiin ama aad timaadeen mid ka mid ah kanaalada ama janaalada aad wax ka faa'iidi doontaan ayaa imaateen. manna ku khasaari doontaan dabcan sida aan noogu imaateenba waxaa waay inaa faa'iidaysataan. faa'iidadaas ayay ku socon doontaa. kuwii hore asxaabteena hore oo min bilow ilaa hadda nala socdo ayayna waxaan dhahaynaa waa mahadsantihiin. kulley hadda isma baranayno, waxaa asxaabteena hore ka mid tihiin, idinkana waa idinka mahadnaqaynaa. marka idinkan waxaa idin leenahay ha fogaanina, ha dheeraanina. yacni waxaan waa taxane, waa isdabayaal. marka yaa la fogaanin yaa la dheeraanin, aan isla socono. haddii marka ay tahay adiga marka ugu horreysay aad soo booqato janaalka, waxaa kaa dalbanaynaa ama kaa codsanaynaa in aad subscribe dhaato oo aad nagu soo biirto. subscribe haddaa dhaat waxay ka caawinaysaa in marka ugu horreysa aan muuqaal soo gelino uu ku soo gaaro. haddii subscribe ay nagu tahayna inaad muuqaalka laag saarto oo arday badan ay sabab u noqoto in aad adiga laag saartay inay muuqaalkaas kaga faa'iidaystaan. waa mahadsantahay. marka muuqaalka laag kala saar waa muhiim, laag kala saar please. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum
waraxmatullaahi wabarakaatu.